waxaan rabaa inaan si guud dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada aan ugu baraarujiyo. Hadda koor ayaa anoo Nairobi jooga qolo TV ay wareysteen. Waxa la weydiiyay ujeedka ugu dambeeya oo siyaasadda ka leedahay maxay tahay. Marka waxaan ku inaan janno ku galaan rabaa. dad badani way ku wareersan yihiin up to now. maxaa jira waxay u baahan yihiin inay islaamka fahmaan ay u baahan yihiin sideedaba ilaahay wuxuu yiri wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu qof kasta ayba uu shaqeeyaa horta nabiguna uu sheegay oo wuxuu dhahay qof kasta ayba subaxii uu ka lahaa deedna shaqo qabta ugu dambaysta naftiisa ama uu xoreeyaa naar buu ka xoreeyaa ama uu halaagaa marka cid waliba way shaqaysaa laakiin shaqadu baa kala duwan sidaa darteed shaqo kasta oo la qabanayo jannada lagu galaa laakiin laba af bay leedahay sideed u adeegsanaysaa bay waxay u baahan tahay inay conditions inay ikhlaas horta marka hore niyad jirto niyo inay jirto oo aad niyeysan tahay shaqadan aad qabanayso inaad Ilaahay ugu dhawaanayso waa inaad ikhlaas Ilaahay dartii u qabanayso haddaad intaa samaynayso shaqaduna ay tahay shaqo nacfi leh walow naftaadaba nacfi ah u lahaatay sida culimadu noo sheegeen diinteena islaamku noo sheegtay Ilaahay idankiis janno waad ku galaysaa waxaan rabaa horta bal dadku inay sidaas u fahmaano mid walba waxa ilaa ninkii yiri jannada waan ku galayaa siyaasaddu min aqrab min a'zam alqurbat ila Allah bay ku jirtaa badeen culimada qaar wax Ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fiican bay ku jirtaa hadii uu qofku dee uu sidaa yeelo hadii kalena waxa naarta lagu galay ugu badnaane marka fahamka islaamka diinta islaamku iyo fahamkeedu waa muhiim warta inaan fahmno waay qof walba shaqadii jannada lagu gali lahaa waad haysataaye ama ku gal ma naartay ku geyn mise jannaday ku geyn adu kala dooro aday ku taala waxaan ugu hambalyeeyaa dhalinyaradeenna marka inay doorteen jidkii ay jannada ku gali lahaayeen kuna shaqaysan lahaayeen inta marka laga tago akhyaaray waxaynu qabnaa mushkilada waaweyn ayaa haddaan Soomaali nahay in hor taagan oo ina haysata oo dalkeena inay burburiyaan oo ay kala diraan qarka u saaran maxaa kamid ah horena way soo burburiyeen haddana waxa ogaagaan yabyabanay inay kala diraanba ay qarka u saaran yihiin maxay yihiin cadawgaas cadawyo badan bay midka koobaad waa qabyaaladda meel ku qor cadow ka weyn oo aad adigu leedahay oo aabbaha leeyahay oo hooyada leedahay oo ilmahaagu leeyahay qabyaalad ma jiro horuu u burburiyay dawladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed wuxuu burburiyay shirkado wuxuu burburiyay qoysas wuxuu burburiyay ururo wuxuu burburiyay dawlad burburiyay wuxuu inooga tagay ma jiro Ilaahay amarkii haddana uu si macaanaanayaa markasta waa uu si macaaye lagama xiisa dhaco haddii la tago qaarada kale uu kula guuraya meelaan laga aqoon haddii la tago qabiil uu nala joogaa nagama baxayo dadkii uu halkan ka qaxiyay markay tageen Yurub iyo Mareykan wali way sii wadaan masaajidkan ku dhex jirnaa xaramkan la dhex fadhinaa meel uusan nala joogin jikada uu ku jiraa dhiig uu ku jiraa marka hore taas waa qodob waa mid waa qabyaaladda cadowga labaad een leenahay
ومتك دد كاني دميي ودبعتها وين إنا وهاي متك إكستريميستية يددك دين الإسلام كسيدة قلتك أو فهمي دبعتها دد كأنه كوهاي دل كأنه الدولة نمدن أمد نمدن قرن نمدن هرتاج وفكرك حجرك دين الإسلام كهالستقوا دقن كهالستقوا الدولة نمدن هالستقوا wax walba halis ku ah midka saddexaad waa faragelinta shisheeyaha iyo kala qaybinta dalkeen iyo jaajuusnimada oo dalkeena farabaan ku haya oo kala googooyay oo wax dawlado u eg inoo dhisay korka aad ka moodayso inay dawlado yihiin qabiilku korka ka sii ilaalinayo laakiin dhuuxa hoose uu shisheeye iyo jaajuusnimo yahay loogu talagalay dalkan inuusan dhaqaaqin waa midka saddexaad weeye maxaa jira midnimadii dalkeena ayaa halis ku jirta oo khatar ku jirta midka afraadi dhaqankii ummadan oo ugu horeeya afki oo ugu horeeya xishoodki oo ugu horeeya ku jiraan qaraabanimadii iyo isxiriirintii is-ixtiraamkii oo la isku dhaho dhaqanka guud ayaa halis ku jirta waxaa intaasoo na ka sii weyn diintii baa halis ku jirta afkaaro iyo mashaakilaad intaan sheegayno dhan diinta halis ku yihiin waxaan rabnaa marka technology halkaasuu yaallaa markii technology-ga marka kuwan loo adeegsado labadii inbay mid noqon inay dee khayr noqoto oo haddii qabiilka lagu dhimayo oo dadka lagaga wacyigelinayo oo lagu yaraynayo oo khayrka dadka la isugu soo jiidayo oo aan lagu kala geynayn dee khayr buu noqonaya haddii laakiin dhinaca kale lala aado dee problemkuu leeyahay waad aragteen haddii fikirka xagjirka ah faafintiisa technology-gii lagu adeegsado khatartay leedahay waa aragteen haddiise laakiin dhinaca kale loogu adeegsado sida ay u damin karto iyo si u bedeli karto waa ogtihiin qabyaaladda mar kastaan ku celinaya iyo kicinta dadka in lagu awrkacsado dhallinyaradeenna waxaan rabnaa marka dhibaatooyinkaa jira dalkeenna ee viewalka looga dhigaayo social mediaha in dhinac kale loogu gediyo oo viewal yaa looga dhigana biyo looga dhiga lagu damiyo lagu daminaya in looga dhiga waan hubaa dadka Soomaaliyeed oo ku dawaqsanaa dhibaatooyinkaas oo ganacsato leh oo dumar leh hooyooyin leh aabbayaal leh aqoon-yahano leh wax garad ah oo dhibaato badan ku jiray runtii xal u laa Cabdullaahi waxaan uga mahadcelinayaa solution buu keenay dhalinyaradan waxay keeneen solution xal bay keeneen kan in aan xoojino waa muhiim marka ay bulshadu isugu tagto dhammaan oo la xoojiyo inta la waashay aad ogtihiin oo waxa weeye de meesha la sii maray gabdhaheena xishoon jiray waa ogtihiin mashaakilka hadda yani dhibaatada jirta waa ogtihiin mararka qaarkood waxay is weydiinaysaa war qofkani maysan Soomaali ahayn hataa haddii ilaahay amarkiisa dhar waaweyn inay qabto waaba dhici kartaa gabadhu mararka qaarkood laakiin waxaan ogahay runtii waxaas waxaa
وحمري يعني ظاهرة جرته أيها وحا صورن جيريس عقلي دبوليسا مسكحدي دبوليسا marka way la tagaysaa dadka dabay waa dabayl weyn oo waves ama socdo waaye marka dadka way legdaysaa wax oo dhan way dilaysaa marka waxa tiin dhalinyaro waxaad bilowdeen jid wanaagsan waxaan rajaynayaa ilaahay idinka inaad sabab u noqotaan inaad trendskaas fiican inaad la timaadaan oo abuurtaan daahiro weyn oo iyo mawjado iyo sidii uu sheekhu ku tilmaamay kacaan akhlaaqeed oo xoog badan oo lagu saxayo isticmaalka tiknoolajiyada loona adeegsanayo khayrka loo adeegsanayo initiative-ka in wax la curiyo waa khayr in waxbarashada la saboorgareeyo ama maxaan ku dhahaa la xoojiyo oo lagu faafiyo jahliga lagula diriro waa khayr in dhalinyarada ganacsigooda iyo wax soo saarka in kor loogu qaado oo lagu muujiyo oo dadka lagu dhiirigeliyo waa khayr midnimada bulshada iyo walaaltinimada ka dhaxaysta dadka Soomaaliyeed in lagu dhiirigeliyo waa khayr afkeena Soomaaliga iyo adabkeeni iyo suugaanteeni iyo dadnimadeeni iyo culture-keeni iyo thaqaafadeeni in kor loogu soo qaado waa wanaag xishoodkii rag iyo dumarba dadka Soomaaliyeed iyo dhaqankoodii ay lahaan jireen ee wanaagsanaa in lagu faafiyo waa muhiim dhaqanka xun ee leenahay sida qabyaaladda dadka isku dilaya kuwa siyaasadda ku galaya kuwa ka shaqeeya in lagu la dagaalamo waa khayr waa wanaag in la isku xiro dhalinyaradeenna dal iyo dibad oo ay deedina noqdaan dad Soomaaliyeed oo midnimada iyo Soomaalinimada lagu dhiirigeliyo waa wanaag in programyo carruurta yaryar ee Soomaaliyeed lagu badbaadinayo meel kasta ay joogto oo xumaanta looga badbaadinayo dhaqanka xun qabyaalada internet sheegayno dhan looga badbaadinayo in la abuuro waa wanaag kulli waxa soo dhan waa wanaag waaye marka wanaaga si guud inaan uga shaqeyno ayaan u baahanahay nabadda in la dhiirigeliyo nabadda iyo xasiloonida in la dhiirigeliyo in laga hortago wax kasta oo nabadda iyo nolosha ka hor imaanaya in laga hortago dhalinyarada laga rabaa marka dhalinyaro aan u adeegsano waxaas aynu u adeegsano social media iyo technology-ga ilaahay keenay waa nicmo mar kalena waa mushkilo ay labadaba noqonaysa marka aynu nicmadaas ilaahay uu keenay oo aqliga bashariga ka soo baxday aan dhinaca wanaagsan aan u adeegsano waanan runtii aniguna waa dhiirigelinayaa si marka aan dhiirigelinta xukuumaddu uga qayb qaadato waxaan rabaa annagana insha Allah next time dadka soo baxa waxaan siin doonaa hadii la yiraahdo qofka ugu horeeya hadii la yiraahdo xajkan geenina soo xajiyo day gabar tahayna de waalidkeedii iyo wadaadkeedii iyo waa loo ogol yahay raaca marka in marka la dhiirigeliyo dhalinyaradaas aad iyo aad ban dardaarankayga ugu dambeeyay dhalinyarada siinay wax ooyay waxaan aad iyo aad runtii ula qiirooday gabadhii hadlaystay magaceeda hadda ma xusuusto Anisa aad baan u salaamayaa aad bay u mahadsan tahay go'aan bay gaartay dad Soomaaliyeed bay ilaahay hortiis ballan kula gashay meeshay aadi doonto jidkeedu way cadaysatay aad iyo aad bay gabadhaas u mahadsan tahay saameyn weyn ayay leedahay anagana wayna saameysay ayada iyo inta kaleba si ay jidkaagu kuugu sii cadaado diinta islaamka baro diinta islaamka markaad barato diinta islaamka ayay aad u sii macaan tahay daacinimadaada
markaas aad u simcaanta marka waxaan kula talinayaa si aad ducaad u noqotaan barashada diinta islaamka inaad barataan ee macaanka badan runtii marka aad baan intaas runtii dhalinyarada ayaan uga mahad celinaya